كورد نلاقي قريني يحمر يعلي oo intuu qof noo soo xaday aan meel gashanay horta xalo ka xalayo ugu dambeeyay 89 flight baan u shaqeynay Soomaaliland u sheedmiri anagu maadaama Soomaaliya ka dhagaadagtay heshiiskiina fuliso waxaanu aasaasnay xafiiskii hawada sare maamulayay FIC Flight Information Center may qarsoonayn 45 shaqaale ah oo lacag badan iga baxday in Ethiopia ku soo tababaray oo qayb walba leh gobolada Soomaaliland oo dhan ka socda waxaan soo iibsanay qalabkii lagu leeyahay diyaaradaha waxaan sameynay xafiiskaas waana kii heshiisidan ku jira ah in noor sector kana la maamulo south sector kana xamar laga maamulo hargeysan kan laga maamulo maxaa markaa mushkilad jira anagu noor sector markaan isla maamula iyaga moodeen wax laga wareegay diyaaradii markaan la hadalay waan u dhameynay adeegii ay iyaguna soo hadlayaan diyaaradda iyaga ka caawinaysa marka xaleeda suutii la dhameeyay adeegii qoladan kala maxay haayeen iyadu ma kala garan sidii cirkay ku jirta waliba markii anagu kuna dul marin ma la hadalaa dadkayaga fasaxa communication na dhex maraa qofkan kale soo galaya waree muqdisho maqiiqano isla hawa la ka qaad ayaa soo dhex galay diyaaradii marka in waanay garanayaan adeega la siinayaan waa isku mid diyaaradda joog lagama bedelo oo hadii la bedelada waa la isku dhicila estimation kama bedelo cimilada ground kan hargeysa cidba iyagu ma joogta cimilada u baahay annaga namadayada hayo oo iyagu waxay rabaan cimiladii noo soo dira annaga aan u dirnay annaga baday imka halkan ka dir diyaaradda waxay baahantay emergency hadii u baahato inay degi karto goroomadii emergency ay ku degaysayna waa hargeysa muqdisho annaga waxa waa hargeysa berbera anaga joog marka mushkiladda wax iyaga qab waxay isleen waxa la idinka qabsaday hawada qaybtii waqooyi baa la idinka qabsaday dib soo celiyay marka diyaarad walba uu adeegno oo la hadalo iyagoo maqiiqan soo galeen marka de ka joojiyaan hadalka iyagu ila diyaaradda adeeg la siinay waa isku mid dawladda shisheeye ayaa idinka faragelin idin ku sameeyay oo qalabkan iyo hawlahan aad ka keenteen xagee bay idinka arrintan idinka soo gaadhay horta eeg meeshan ilaa 1991 baa la faragelinay siyaasiyintooda yaryar ee doorashada markay isku qabtaan waxay dhahdaan beesha caalamka noo soo qayaad caalamkii wax weyn u yaqaanaan horta iyo dawladda ajnabiga waa sida iyaga loo farageliyay 30 askari u joogaan anagu waxaan shacbi ahaan reer Soomaaliland hadaan ku faana 31 sanado anigu imka anigu yar baa Soomaaliland la aasaasay weligaa askari ajnabi ma arag xuduud Soomaaliland Ethiopia inta noo jirto askari Ethiopian kama soo talaabay maanta iyaga magaalooyin baa laga haystaa xalana loo fadhiyaa anagu dad xor baan weligaa madaarka hargeysa qof ajnabi kama shaqeyn turki baa madaarkoodii maamula juuj wama juuj baa degan anagu nooc amani from cleaner iyo maareeyo ana ugu sareeya wada free Soomaaliland waxa qalab labaad dawlad naga caawisay oo uga baahanay qalab oo anaga isku tashigayga ahayn ma jirto laakiin qalabku dawaanay garanayna inta market ku yaala madaar inaad xukuntuun baa ka haysaba madaar inaad maamusha adduunyada laga yaqaano koor leh ayuunba inaad qalab dalbato oo ka leeysan imika Hargeysa International Airport ayaan ku soo iibsanaya Berbera International Airport baa ku soo iibsanaya marka Google ka laga eego dunida dhan arkaysa madaarkan qofka maamulay inuu aniga yahay uu imanaya uu xaqiijinay inuu real yahay qalabkii buu iibinay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa lagu dilay alla naxariista jannaha ka waraabiye Cabdinaasir Muuse Dahable oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda dawladnimada Soomaaliya khabiirna ku ah dhanka hawada adigoo ah maarayihii duulista hawada Soomaaliland oo Hargeysa jooga waxa sheegtay in ninkaasi ay dawladda Soomaaliya dishay maxaad ku cadeynaysaa walaal horta marka waxaan ku sheegay Khaalidow ilaa 60kii markii la isku biiray aviation career Soomaaliland baa aqoonteeda lahaa hadii Somali Airline noqoto hadii kabtanada caanka noqoto ekaawana imika berigii ekaawa aasaasnay iyagu dagaalay ku jireen shaqaalaha ugu badan reer Soomaaliland weeye maadaama aanu guul ka gaarnay toddobaadkan hawadii aan xiriir fiican sameynay oo wixii aan doonaynay aan xaqiijinay shaqaalaha dilaa aqoon dad badan loo hawada ka yaqaan ma joogaan meeshii waxay moodeen shaqaalaha inay xog noo soo direen annaguna qof xamar joogo xog uma aanan baahnay waxaan wax xog looga baahan karo ma kuwiina ku filaaday annaga isku filan ba 45 shaqaalaha min Ethiopia soo tababaran qalabkiina waan iibsanay shaqaalahan jooga qaar la mid ah haysana kaba fiican marka muddo diyaar garoobeen marka shaqaale waxay ku bilaabeen hadidaad imkaan aan kula hadlayo niman baa telefoon meel miyiga la soo hadlay oo leh maxaan jeedaa meel xaafad durugsan igala soo hadlay meel baan ku dhuumanaa shaqaalaha kamid ah marka shaqaalaha ilaa maalintii Soomaaliland talaabadan qaadnay hanjabaad toos ah oo kuwa la shaqeynaya uga imanaysa iyo madaxdooda iyo hay'adooda sirdoonka socday inankan markaa muxuu la gaarahay inankani wuxuu qoray thesis jaamacadeed oo uu leeyahay privatization of navigation
air navigation sidee loo private garayn karaa oo siyaasadda looga saari kara hawada iyaga madaxdoodu u present gareeyay 3 jeer hore u yeedheen maxaa kolba halkan noogu celiyay maxaad uga jeedaa markii hawshu soo baxday beebarkii bay moodeen in ninkan wax ku lug lahaa de meeshan cadaalad kama jirto qofka looma yeeliyo lama xirayo maxkamad ma jirto waa habeen madow inanka daalaha u naxariisto reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan way la yaabtay waxay tilmaantay dhaqanka halka yaal iska daa ay dileen qararkiisa joogay maasajiyaan jabaada u soo diray oo lahaayeen ay kolba magacyadooda sheegayeen kuwa la jooga ayaa imka dirqa kula jooga marka waxa weeye war maxaa la idinka xaday xataa ma garanaya koodhka hawada lagu maamulada xamar yaal muxuu yihi waa raadiyo kala koodh kala laan keensanay oo waxana dul mariyaan ku arkay marka koodh nalaga qarinayo xamar yaal oo intuu qof noo soo xaday aan meel gashanay horta ma jiraba